jaaniga markaas waxaan garabsaday inaan ahayn afduuban dukumiintiyadii aan haystay furayaashii guryaha wixii aan ka hayay furo gaari mobilkaygi iyo dukumiinti badan ugu jiray mootaaliyaha u dhiibtay sidaas aan xabsi uga wuxuu uga dacwiyay meel la yiraahdo Arbaco shabaab ayuu u tagay shabaab iska wada anoo la jooga baarihii saldhiga iyo injineeradii dhammaan guryaha aan joognaa telefoon shabaab soo dhac booliska wali wadaaga qabtay ninkii maalmo kadib dukaankiisa ka qabteen sharciga la hor keenay si cad wuxuu u yiri waxaan waxba kama qaban karo qadiyadu markay shabaab joogto aniga adiga wax aan ku dhaamaa ma jiraan totally waxba kama qaban karo ma hubaysni sakuurad ma wato hebel waxa lagu diray meel soo nakay maxkamadda ciidanka markaan tagnay general bulla kamay kiiska la wareegay aniga 36 jeer ayaan ka duubay shabaabka cod oo gargoon garay 34 cod oo kamid ah waxaan u qaybiyay dhammaan booliska xeeralayaasha wixii qof walba oo mas'uul oo cadaalad ku shaqalaha first one ugu jileeyay waxa la hor keenay oo moral dilaac 34 cod labadii cod oo bulac u dhiiba maahan intii kala dawladda soo gudbiyay iyo codadkii aan duwaalay hor keenay intaas markaas ka dafira ninkii cod dheer wuxuu ku celceliyay war ninkan dawlad ridaha ugu dacwiyay maxkamadda ciidanka shuruuta la saaray bismillaahir rahmaanir rahiim kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal waxaad ku soo dhawaataan waraysi aynu magaalada muqdisho kula yeelan doono injineer Faarax Cabdinaasir Cabdulle waxaynu waraysigan si gaar ah diiradda ugu saari doonaa cadaalad darro uu injineerku ka tirsanayo go'aan ay ka gaareen kiis isaga ku saabsan maxkamadaha dawladda federaalka ee Soomaaliya ama hay'adaha garsoorka dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo sidoo kale maxkamad ay leedahay kooxda al-shabaab gobolka Shabeellada Hoose hadaba kiiskan oo dhacay sanadii 2018 ayuu injineer Faarax go'aansaday in uu maanta shaaciyo dhammaan dhacdooyinkii ku gadaaman kiiskan ee uu kala kulmay dawladda federaalka iyo xubnaha ka tirsan xarakada al-shabaab maxkamadahooda ee isaga xukumay oo ku mahadcelinaya injineer ku soo dhawo barnaamijka gaarka ah ee diiradda farcada ugu horeen waa dhawahay farcada oo maasan tahay barnaamijkan aad u soo dhaweynaa aniga dadka hadaan hore u galo 2017 bishii December ayaa team ganacsata ah oo reer Bakaara ah dad family ah isku xiran ayaa waxay ugu yimaadeen xafiis aan ku lahaa Tabala Sheekh Ibrahim oo xafiis construction ana nin qandaraas qaata oo dhismaha ka shaqeeyanahay marka waxay idirsadeen guriyo 9 guri ah nimankaas guriyaha dhismahooda markaan bilaabay oo hore u galay waxa ku jiray nin kamid ah nimankaas oo shabaab ah oo ganacsiga ku dhex qarsoon laakiin si cad ganacsada shabaab ah ninkaas waxa uu dhisay guriyo 2 guri ah dadkii kale markaan guriyahooda u dhameeyay oo u wareejiyay asaga ugu dambeeyay oo guriyiisi gabagaba marayaan waxa loo yaqaan balaadka iyo kala dhisiga nadaafada ayuu isaga baxshiisay guriyihii mid kamid ah uu iibsaday aniga markaa kadib waxaan tagay sharciga waxaan u dacwooday xafiiska xeraliyaha guud ee qaranka habashan ka qoray ninka wuxuu diiday inuu sharciga hor yimaado diiday inuu sharciga hor yimaado anigeena tilaab ka badan inaan dacwoodo si ifreen waxaan daabku sharcigu uu leeyahay kaliya dacwo waxay noqotay in iska sugo natiijada garsoorka oo ay raadeen dabcan maalin buu baa la heli doonaa mana garanay ninka xilliga waxa uu yahay iyo sababta uu dawladda uga gambanayo iyo wuxuu sharciga u baxsanaa waxaa dhistay 2 guri waxaan dhisay 2 guri oo filooyin sar ah waa gartay lacagta ku heshiiseen lacagtan ku heshiinay oo guriyahaas aan ku heshiinay total waxay ahayd 93 kun oo dollar ninka wuxuu ka baxshay 46 kun iyo 700 46 kun iyo 300 ka baxshay imisa ku warta 45 kun iyo 700 ay wartay marta 45 kun iyo 700 noo iska leh oo sugaya wax la yiraahdo raato markii heshiiska contractka la galay raatooyin uu leeyahay waa la jabshaa maal hebel intaan gurgu la tusaale markuu foundation ka soo baxo aasaaska mara intaan markii uu albaabada gaaro iyo koordalaha koowaad intaan markii uu mara roofka oo waxa loo yaqaan infinitiibada la daboolo intaan markii roofka la saaro oo finishing la sameeyo la salaaxo markii raatooyinkii noocaas u socday 45 kun iyo 700 oo lacaga ayadoo balance ku tahay gurigiina uu gabagabo marayo oo ninkan heshiis isaga bax aniga bas shaqadii waajibkii aan gutay shaqadii waa iska dhameeyay waxaan tagay
cabashaan geystay xafiiska xiraalinta oo loo yeeray uu imaad diiday markii loo yeero uu imaad diiday aniga anoo cadaalad suga ah oo shaqadayda maalinlaha iska wata aniga qaasad gaar ahaan waxaan deganahay degmada hoodana waxa la iga wacay saldhigga galbeed dharkili markii la iga wacay hadee xafiis dawlad la iga wacay qayb ahaan aniga qaybta galbeed ma degani jirsiyoon ahaan dharkili ma degani laakiin sabab xafiis dawladii laga waco aan culays ugu arkaa ma jirin marka waa baxay waa tagay saldhiggii booliska markaan tagay waxa isla taagan shaqsigii cadaaladda baxsadka ka ahaa oo xafiiska xiraalinta uu yiri lama hayo lamana soo qaban karo baarihii saldhigga oo liira qadaril kacse iyo laba nin odayaal anigana waxa ila socday hal qof oo mootaala ah oo taksiyaan u kiristay degmada hodan halka kadib baarihii kor iga tusay wuxuu waa kana ninkii baaru su'aala wuxuu weydiiyay kali ah in magaciisu yahay Faarax bin Nasir ها وأنا كنقول ويجي وبلاه وحكور إن كان وحرين هاي إن كان حر وبيجن هجلين ما جعيس هكورين بقول شا أنا كمركز واحد جرب صدق إن أنا هنا في دوبن دوكيمنتية دي أنا هستي فرياشي جريها وحي عنك هاي فرج جاري موبايل كيجي ودوكيمنتي بدنا نقول شري معطاليها وديبتي ساسا حبسه بقول ما يقع كحرنا حبسه قاس حبسه واحد كحرنا أفرتين سديت ساعة وأنا بارس هلين واحد دعواه هلين تطري واحد عدالة يعني حر وبيجها جلين أفرتين سديت ساعة كحرة وعصيد مضن إنه وبليه الديدي إنه حرام محبوس عن قرين بوج وبيجه إنه حبس وبيجي شغال أصبارها قبصدي أساق فرحيها أي وحس أمر لبحي حبس اللي جلي مركا أفرتين سديت ساعة كدي بحالي هر كاني أفر لا تساعة كدي أفر لا تساعة له عن صح مشس أفر لا تساعة كدي بحالي هر كاني حفيزك حراليه جود قرن حفيزك حراليه جود مركا إمد ده طبعا نين قله سو دعودي حقلها كا حفيز كان دعودي أركان ده فايل كيجي وحكوا أنا كان هذه سنة نوعه أصلاً راديني حدنا أدين كل بنيه يوم محبوس هتودين هذه سنة يوم بناء مركز اللي جوا حلوين روح عن برنامج كان لنا قو مدة الضباب ما علينا نين كان كيس كيسنا كصبار يعبش هذه كان كصبار نشيد بارسيد نو كان مدة دوبريا نين كان لقى بالله بحلقة وحر حفيزكو حراليها وقيب ترجين تبعت جوين مسؤول را فرحان حرالي فرحان وحب بحي أمر تدببري أو بارس أكذب إنه جسر عليه نشيد بارسيد كا أنا جانا أنجز توحي دوكيمنتي أصل لقى نين كان نسيو كلا عبشيس أصلا أوجيس باره مركب مداوم محبس بدون ودي أنا جي وحب فريسي مال ساعتك اكتساء نينكي دعوه نقدر حسابه وحور أنت جسوجا محبسنا كلام صار مثلا حال كامر كي جوكتو نينكي دعوه نقدر حدي وحو وعدي سرجال عيدانو اللي راه كورنيل آدم بيت وحكير هذا آدمو ده نينكي ولا حر ديدي ولا فصحي هذا يكوي يبارس على الجلا يسوجر كورنيل آدم بيت أسوق ورده ويمد كورنيل آدم بيت كاسوا بوليس وحكتر سين هاي كوحدة وفنانين تا وبوليس marka uu yimid in garsooraha u tagay jaa xabsi u gudbina lay dhamay garsoorahaas kaliya wuxuu weydiiyay magaca hooyaday magaca aabay eedana lagu haystaa maxaa ka jira midna ma dhig aniguna waxaan ahay kowdii hore nin cadaalad helay oo baaris loo diray oo xaqiisii iyo qaabkii dariiqii garsoorka nidaamkii maray sidaas abuus garaynta ah ayaa xabsi dhaxlay u geeyay waxyaabaha la weydiinaya waxa kamid ah furayaasha guriga aw sidaasaan xabsiga dhexe ku tagay 19 beri oo xabsiga dhexe ku jiray ayay ugu qaadatay inaan loo yar helo inaan isdifaaco xilligaas waxa xeerlaaliye ahay Dr. Axmed Caldaar maxkamadda gobolkana waxa joogay nin la yiraahdo Muuse marka loo yarkeygii dacwo ogtay wuxuu u tagay xeerlaaliyihii qaranka iyo gudoomiyaha maxkamadda gobolka ma waxay raakaraleen ninkan banaanka la keenay hadda iyo kuwiya baaris maalinta wixii ka dambeeyay qofka dacwadu naga dhaxaydi isma ana horima kiiskii waxa lagu qoray xeerlaaliye la yiraahdo deeqo Dr. deeqo waxay baaraysay 4 bilood oo anagu ahay maxbuus daba jooga ay kiiskiga baaraysay 4 bilood kadib xafiiska xeerlaalinta maxkamadda gobolka Banaadir waxay u dhaheen dambiga lagu xiray oo ahaa inaad hanti ma guurtaa burburisay
xoogna ku haysato naf dad qof muwaadin ah qatar ku tahay waa lagu waayay anigu automatically waxaan xaq u lahaa maalintaas waxa ugu yar ee ku cadaa waa inuu been abuur ugu sameeyay in sharciga la horkeeno qofkaas nin xabsi ka soo baxay xabsi ciqaabeed soo maray leeyahay dambiga waa lagu waayay maxkamadii gobolka ay leedahay alcumuum aniga de mar kale aan dhiganay xaqayga aan helo dacwada hal dhaqaaji ninkii mar labaad looga yeeray xafiiska xiraalinta uu hor yimaadid saldhigga booliska degmada Daynile oo jirisyoon ahaan asaga u deganaa ayaa waxa la amray inay soo qabtaan ninka cadaaladda hor keenaan kiiskan ay soo baaraan mar kale ninkii saldhiggii waa tagay qof boostaalaha igeeyo oo ka socda xafiiska xiraalinta wuu diiday inuu hor yimaado xafiiska xiraalinta markuu diiday inuu saldhigga inuu hor yimaado uu diiday saldhiggu baaristiisu iska watay guriyihii uu tagay ganacsigiisii uu tagay maxkamadda report soo celiyay xafiiska xiraalinta waxa la amray inuu guriyaha oo baaris dhab ku soo sameeyo soo qiimeeyo injineer la geeyo maxkamaddu guriyihii laba injineer u dirtay waa la soo qiimeeyay aniga waxa la diray statement iyo lacagaha aan qaatay iyo marqaatiyaashii xilligan lacagaha kala qaadaynay dadkii noo dhaxeeyay waxyaabahaas oo goob jooga ka ah dabcan aniga waqti kooban kadib xoolihii way soo cadaadeen xafiiska xiraalyaha guud ee qaranka waxa uu soo cadaatay iyo booliiska lacagta aan leeyahay iyo aragtay eedaha laga galay ninka halka markii joogto oo shaqadii si dhab loo guda galay oo guriyihii la tagay wuxuu uga dacweeyay meel leeyahay arbaco shabaab ayuu u tagay shabaab soo anoo la jooga baarihii saldhigga iyo injineeradii dhammaan guryaha aan joognaa telefoon shabaab soo dhacay oo leeyihiin tilaabo sharci waafsan laga qaaday arbaco meel leeyahay imaw iyo handadaad oo saacaddan furay waxaan la wadaagay markaas sargaalkii booliiska oo taagnaa iyo injineeradii wixii wala dhageystay bas aan dhig jalo ma siin sababtii tahay ma aaminsani in shabaabku ay yihiin awood jirtay iyo in loo dacwadayna saxta midna aniga inta kadib waxay ugu soo celiyeen booliiska xiraalinta xeeralaaliye oo dacwo ugu qaabilsan oo Cabdirasaaq Macalin Yuusuf ay ugu wareejiyeen galkii oo dhameystiran xoolii ku cad yihiin eedii ku cadahay iyo anigiiba kadib wuxuu ku qoray xeeraliye la yaxye wuxuu warqad u qoray 3 degmo Daynile Howlwadaag iyo Hodan in iska gacan siiyaan ninka soo qabtaan hadaba ganacsigiisu uu ku yaalay Howlwadaag xaafadahaan oo kala deganaa Soonakey iyo Daynile oo odweyna booliska Howlwadaag qabtay ninkii maalmo kadib dukaankiisa ka qabteen sharciga la hor keenay yaxye maalintii la hor keenaa waxa soo dhigay sargaalkii dambiyada hore u sheegay niman loo yara ah niman ganacsata ah team noocaas soo dhig ninka waa laga dabintay maalinta kuma laguma guuleysan inuu la rumaan gareeyo sharciga oo xad maxkamad sugan noqdo markale uu noqdo dacwasi shabaabka aniga qatar shabaabka ay u soo korortay handadaada 24 saac yaxyaan u keenay markale codkii iyo waxyaabihii aan duubay iyo taleefanadii liga wacay si cad wuxuu u yiri waxaan waxba kama qaban karo qadiyadu markay shabaab joogto aniga adiga wax aan ku dhaamaa ma jiraan totally waxba kama qaban karo ma hubaysni sakuurad ma wato hebel iyo hebel waxa lagu diray meel Soonakey marka arinta shabaabka ma dhaco wuxuu ii gudbiyay maxkamadda ciidamada inta soo maxkamadda ciidamada ii gudbin aniga waa arinta waa qaado waayay xeraliyaha guud ee qaranka u tagay Dr. Saleyman wuxuu ugu yiri hadii yaxye baqay ana midaan baqan ku qoraa waxba isbedeli waayeen markii aan muddo 3 bila raadinayo in tilaabo cadaalad la qaado xeeraliye kiiska dhaqaaji karo lagu qoro waqti ugu filan aan sugay waxaan tagay waax ku taala maxkamadda gobolka Banaadir dhexdeeda oo ilaahay wasaaradda cadaaladda qadiyadan la socodsiiyay wixii handadaad iyo cabsi gelin u dhacayaan la socodsiiyay way soo raaceen waxay la yimaadeen laba nin oo mas'uuliina agaasimaha waaxda iyo ninka loo xeeraliyaha waxay la yimaadeen yaxye intii aniga uu yiri ma ku yiri wuxuu kiiskan dhaqaaji karo ninkan inta soo qatari ku jirta shabaab waxa waa handadaadi ku hayaan telefoonkan laga wacaan u aqaana bulshada maalin walba ay keentaa oo waa qaybta u yeerista shabaabka codkaana sidoo kale dadku mar walba ay keenaan marka ninkan aniga wax aan u qaban karo ma jirto kiiskiisana kuma dhaco laakiin waxaan ka saacidaa
kiiska shabaabka waxa iskale maxkamadda ciidanka in galka aan maxkamadda ciidanka ku wareejiyo ay talaabo ka qaado adoo intii uu sameeyay maxkamadda ciidanka u diray maxkamadda ciidanka markaan tagnay general bulla kamay kiiska la wareegay CD warqadu qoray 24 saac kadib ay CD soo qabatay ay sanay 4 saac kadib markay soo qabatay CD wuxuu ku xiraa ninkaas muddo oo adigu celcel 5 bari ah oo baaris ka socotay taleefanadii aniga laga hadlay oo argagixisada wax allaala wixii oo qabasho aniga qabay ninkaas oo qaybna qiraal u sameeyay taleefanadiina asag mobilisa laga helay kuwa aniga laga handadayo laga wacayo oo qatarta igu aha dad bay asaga u seef garaysan oo tacaamul ka dhaxeeyo suucitaan ka dhaxeeyo ay noqdeen marka inuu shabaab ugu dacweyn uu qirtay isagoo markaas ku andacoonaya dawladda dhexdeeda cadaalad ka weyn alcamum maxkamadda ciidanka la hor keenay waxaa damaanad u sameeyay nin la yiraahdo shareeco oo xeeraliya xitaa shareeco wuxuu isku dayay inuu aniga igu canaanto sababta codka shabaabka uu duubay iyo report-kan uu sameeyay aniga 36 jeer ayaan ka duubay shabaabka cod oo gargoyn galay 34 cod oo kamid ah waxaan u qaybiyay dhammaan booliiska xeeraliyaasha wixii qof walba oo mas'uul oo cadaaladda ku shaqalaha iyo amniga laba cod oo kamidana waxaan si gaar ah u diray nin qaybta dambaarista history bulac oo gaashaan la booliis ah oo markaas qaybta dambaarista aniga marka halka kiiska markuu maraa oo ninkii damaanad lagu sii daayay oo maxkamadda ciidanka damaanad ku sii deysay mar kale waxa uu noqday shabaabkii aniga hal mar waxaan arkay anoo meel cid taagan maxkamadda rayidku ay tiri waxba kama qaban karo tii ciidanku ay damaanad ku deysay ninkii oo shabaab noqday shabaab handadaadii iyo qatartii iyo cabsi gelintii aniga inta soo dhaafeen ay hooyo iyo aabe iyo dadkii familka ah ay nolosha ka qaseen aniga marka waxaan go'aansaday inaan isdhiibo dariiq kale oo ii furan inuusan jirin ima inaan dalka ka baxo ima inaan isdhiibo waxaan go'aansaday in maadaama ii furan dalka inaan ka baxo isdhiibo waa isdhiibay maxkamadeedii koobaad waxay ka bilaabatay meel ilaa arbaco ee maxkamadeedii koobaad ugu saareen ma isla sanadkii 2018 mise maya 2018 dacwada soo bilaabatay markii maxkamadda koobaad saarayaan waa 2020 dhexdeeda waa 2 sano ayaan ku dhageysanaa oo aan maaragtay iska maahina telefoonadooda handadooda oo kiiskan oo marna anigu maxbuus marna ninkan maxbuus yahay oo dawladdu ay dhexdeeda ku rafanaysa markaan cali mahdi tagay meeshii tagay sheeg arbaco waxay u dhayn kiiska waa culus yahay niyo waxa ku gudbinaynaa meel ila ugunji waxay ku taalaa gobolka Shabeellaha Hoose degma ahaan waxay hoos tagtaa Owdhigle waxay u dhowdahay channel dabcan dhul ahaan ma garanayn laakiin markaas la geeyay meeshii ugunji la geeyay ugunjiga maxkamaddii koobaad oo si caadi ah loo soo garnaqa ee iga bilaabatay first one ugunji la geeyay waxa la hor keenay oo moral dilaac ah 34 cod labadii cod oo bulac u dhiiba maahane intii kale dawladda soo gudbiyay iyo warqadihii aan qoray oo uga cabanayay ninkan oo argixisada ugu dacway argixisada daba joogto taleefanadii saacadihii maalmihii la soo wacay bilihii taariikhdii dukumiinti walba oo anagu qoro saxiixan oo sulkiga saaray oo kuwi anagu aan qoray ah iyo codadkii aan duwaalay horkeen inkaas markii wuxuu ku dacwoonaa inaan dawlad ridaa u adeegsaday in naftiisa iyo maalkiisa aan qatar ku ahay aslanba inaan ahay mid kale nin askari dawladeed ah wuxuu ku dacwoonaa ninkii dacwaystay marka koo waxay ugu ogeynba codka la dhigisiyay waxa la hayay waxaan adiga mana duubtay waxaan wado waa qirta aniga ina codka duub waa qirtay marka laakiin waxa ku soo waxaan ku yiri ma garanay wax codka duub wala laga gudbay codka way dhaariyeen waxay igu dhaariyeen kutub jaamac igu mariyeen inaanan markaan codka duubay garanayn cid codka duuba waxay halkaas ugu gudbeen waxay u gudbeen dukumiintiyaasha aniga iska dafiray dukumiintiyaasha markaan dafiray ninkii wuxuu cod dheer ku celceliyay dukumiintiyaasha yani ma lambaradi iyo dukumiintiyaasha warqadii aniga aan qoray oo cadeymaha ahay ay hor dhigeen kuwaas waxa ku qoran in waxa ay wacaa ay shabaab yihiin aan ku qoray
codka dee haddaad garanayn cidda ku soo wacay dokumentiga waxa isqilaafa kelmadda aan codka isaga difaaca oo ah ma garanayo waxay yihiin iyo waxa aan ku qoray warqadda aan booliiska u gudbiyay oo aan ku cadaynay waxay wacayna shaabihin marka dokumentiga weydiiyeen dokumentiyaasha iska dafiray dokumentiyaasha marka iska dafiray ninkii cod dheer wuxuu ku celceliyay war ninkan dawlad ridaha ugu dacwiyay maxkamaddii ciidanka shuruuta la saaray tii gobolka la saaray intaasoo biloodaan ku xiraa dawladda maxbuus u ahaa waxaas ku celceliyay si la mid ah waxaan isku difaacay haddii dawladdu ay rido tahay oo in loo dacwoodaa dambi tahay maxbuuskii koobaad ee dhinaca dawladda ah ee kiiska labada mid la xiriira inaan aniga oo aan ku xiraa anigu xabsiga dhex 4 bil cadayn ay weydiiyeen warqadii maxkamadda gobolka Banaadir ugu leedahay dambiga lagu soo xiranay waa lagu waayay raalli ahaw dokumentiga ayaan miiska dhigtay dokumentiga waxa ku qoran marka anigu maxbuuska ku ah xabsiga dhex laba qof oo qaraabadiisa ah oo markaatiyaal oo u keensaday oo cadeeyay arrin awood guri ku haysasho iyo burburin hanti ma gurtay ay midna inaan ninkan anigu isku haysanay aan isku haysanaa hanti maaliyadooda anigu kulayahay guri ku dhisay labadaas qof ku qoran magacyadooda oo markaatiyaan u keensaday iyo asagii iyo meesha uu ku dhashay iyo dokumenti dhammaystiran waa inkiray nasiib wanaag labadooda la socdo marka way la socdeen hore u soo watay ayaga la weydiiyay waxay dhaheen waa sax ninkan oo maxbuusa ayaa annaka markaatiyaan u tagay maxkamadda gobolka waxaana cadaynay nimankan inay isku haysan awood guri lagu haystay waxaas hanti maaliyad isku leeyihiin oo ninkan uu leeyahay ninkan guri lagu dhisay inay jirto isaga xogaa marka dacwadiisii halkaas hoos u dhacday maadaama dokumenti walba uu dafiray oo dhinaca dawladda ah markaatiyaasha isaga la socday marka ay cadeeyeen labadina la socotay markaas shabaabkii waxay fureen gal caadi ah oo inay guda galaan waxa aan isku hayno iyo maaliyadda markii taa guda galeen amar ay bixiyeen soo maadaama mar waxba lacag dafiray amar waxay bixiyeen ah laba qof oo odayaal ah oo midna dhinaciisa ka socdo midna dhinaciisa ka socdo inay guriyihii tagaan injineer geeyaan qiimeyn lagu soo sameeyo anigu maadaama aan qof maxbuus ah aanan ka bixi karin magaalada uji meeqa joogtay waxaan aniga maxbuus ku ahaa kiiskan dartiis 1 sano 2 bilood 1 sano 2 bilood oo aan maxbuus ahayo guriga aan ku noolahay iyo hotelka iyo maqaayadda iyo waxyaabahaas deewaaniga jeebkayga intaas maxbuus ku ahaa qof walba ee tuuladaas joogaanay oday dheh saqiir dheh maaragtay qof professional shaqaysto ama dukaan gata ama cabitaan la ama caana iibiya qof walba waa shabaab